in uu xirsi sheegay in xusuusta madaxweyne Siyaasi hoos u dhacday isagoo waqti aad u yar talada dalka haya waxaan leeyahay ma jirto warkaasina war beena waan leeyahay waana sheegaa ma gaafto xirsi warka dintiisa baa lagu fadhiyaa inuu isagu keeno taas aan laga sugayaa in lagu taba qaadanayo insha Allah sharciga iyo wixii kale u badaan badii wal laga tigsanaya waayo arrinkan arrin sahlan maaha madaxweynadan ayuu xisbi inta hadlay ka sheego ka been fariimay marxaatiyaal beena uu ku qoray buugga la wareegay waxaan aragnaa anigu ma akhin laakiin mas'uuliyiin fara badan oo lagu sheegay ama uu soo hadal qaado maxamed xaashi kamid yahay ayaa hadlay oo mid uu la beeniyay wixii xuska hay'adda jiray waxa uu ka been fariimay oo ka been hadlay warwadii oo marxaati idana uu ka dhigtay oo been ka sheegay inta waxa looga fadhiyay wasiirka hore ee madaxtooyada in cadeynteedii keeno aanu u tagay waxaan leeyahay madaxweynaha ka marxaatiya waxay ahayd waraaqa badan buu ka soo qorayay xirsi ka soo qadiyay madaxweynaha kolka siday doonaanba ha uga soo baxeen waxay ahayd wax ku badan wixii aanu markaa aanu haynay kolka madaxweynaha aanu tagay waxaan arkay inuu fidma abuur uu ku jiro xirsi intii aan meeshii joogayna had iyo jeer wuxuu odhan jiray anuunba isaaraan jiray kolkaas ka timaada taa wuxuu yidhi waraaqaha uu ka soo qorayay madaxweynaha ee odhanaya waxa lagu farayaa waxaa bixi wixiina ma hayno intooda badan madaxweynahaanu tegay kolkaan fahmay inuu ninkani nin hagaagsan aanu muxuu ahayn madaxweynaha waxaan ku idhi madaxweynahana ka markhaatiya waxaan ku idhi waraaqahan aad soo qorayso ile waxaynu haynaa ma jiro oo saasiye waxa fiican inaad wax ogaato wixii aynu hayno oo dabeetana sidaa darteed aad ku soo qorto wixii aynu bixin karayn si taa loo gaadho waxaan idhi waraaqahan uu xirsi ii keenayo ee uu leeyahay taana bixi baa lagu yidhi taana bixi baa lagu yidhi taana bixi baa lagu yidhi waxaan ku yidhi madaxweynaha wuxuu ku odhan doonaa ina xaashi wuu diiday wuu waayo ku odhan maayo ina xaashi wuu diiday buu odhanaya ujeeddadiisuna waa noocaa kolkaasi aan taa uga hor tagno waxaynu madaxweyne kolkaa waxa fiican adoo og wixii aynu haysanno in kolkaa wixii kharashee baxaya accordingly muxuu ahaa ku qorto kolkaa waxaan kaa codsaday madaxweynahana taana ka markhaatiya inuu xirsi ii yimaado aroortii oon isla eegno bal waxaanu hayno khasnada muxuu ahaa noogu jira gacanta noogu jira iyo waxa deyman muxuu ahaa noo yaalla dabeetana annagoo ogtii inaan muxuu ahaa aan soo qorro uu ila ogaado si aad u ogaataan wixii aan haynay iyo wixii aanaan kolkaa waxay dabeetana tii waxaan kaga hortegayeena halka ay tahay inaanaan hayn wuxuu ku odhan baan ku idhi madaxweyne ina xaashi wuu diiday bixin maaye buu yidhi dabeetana kolkay kugu badato wuu diidaydii waxbaa kaaga duuli doono oo waxaa laga yaabaa inay wax ku galaan si ayna taasi u dhicin isagu aroortii ha ii yimaado waxaanu haynaan isla eegno 5 maalmood kolkuu ii yimid ayuu dabeetana goostay haddana ilaa uma jeedin wanaaguma jeedin ayuu goostay sidii baanu ku wadnay midna waxaana ima eegayn waxaanaa diidanaa inuu been iga sheego oo madaxweynaha ku idhaahdo wuu diiday waa intaasun intaan ugu yeerayay muxuu ahaa madaxweynahana ka markhaatiya kelimaadkaa aan ku idhi taasi waa taa anigu maxamuud ahaan goobjoog kamaan ahayn kulan nologu yeedhay madaxweynuhu xilligaa uu talada dalkaba ku cusbaa ee uu buulcawska ahaa ee afka qalaadna lagu yeedhay honeymoonka kulan nologu yeedhay oo macnihiisu daaranaa in madaxweynihii xusuustiisu luntay oo aanu ama xumaatay uu iscasilay la qabeeyey muxuu ahaa welwel ka muuqdo arrintaa anigu goobjoog kamaan ahayn
sidaa darteed dhacdadaa markhaati kama yihiin yeelay damcadda ay ka mid tahay inaad xoogaa runa sheegto markaa way yaqaanin dee qorayaasha oo dhan way yaqaanin arrintaas beenaaluhuna dee kusoo moogid beenaaluhu waxa ma qori karaa asalkaba dee hadduu wax qorana dee waa iska faashil wax iska faashil weeyaan oo dee wuxuu qorayaa wax faashil qoraya oo dee la iska wada ogyahay buu qorayaa markaa ma soconayso waxyaabaha shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ku xasuusan doonaan waxaa ka mid ah xirsi fudayd faan badan ku takrifal xagjirnimo shaahwareer inqilaab jariska xoor aniguna aan ku darsadee iyo khaayinimo horta xis waa ninka madax toojin tahay ilduuf iyo jeebla tahay hadday wada aniga tahay siyaasadi aabe male kudaalka abaabulkeeda alooskiyo baaliheeda ujeedda ka keeni maysid kadibna waan mareenay banaanka bartankiisii markaan marayna baa 3 taangi naga soo baxeen tignikaleyna way yeedeen annagiina midmid bay noo eegteen kadibna orod wixii anaan markii hore dheerayn jirin aan isku day karayay baan isku day waxaa xasuus leh runtii saaxiibadayoo aan maqlayo saqadhooda u jiiraya taangigu marba ayaa waxaan marba isweydiinay talo goorma adna ku jiiraya dhaafay baan hayn waaye markaan arkay inuu taangigii farax dilay ugu hayo oo si aad u kakan marka aniga ii raadsanayo kadibna geed yar oo aan weynay ayaan intan dhaafay kii labaad soo gal markaan galayna markiiba waa kana waayaya waana shaato wajigaan madaxaas dhigay markaasaan miyii ugu dambaysay waa ii sheegay ilaahay fadligiisa bifadli wamani wuxuu ugu beegay taayirka intaa cala casha ayuu taayirku geedkii igu qabtay oo burburiyey yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfa suduur war ilaahay miyaanu xirsoo ku odhan miyaad khiyaamayn karaysaa haddaad dadka khiyaamayso ilaahay intayda kale ama gaadhin dhexdii waa intayda kale ku beegantay bifadlilaahi ilaahay baa inooleystay laakiinse runtii madaxa waxay iga dhacay geedkii iyo candhadiisii iyo wixii baa uu aada igu cadaajay kadibna sankii afdhig baa iga yimid wakti yaroo kooban baan meeri lahaa Radmale, Lela Lautun Moda.